nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu yiri ruuxii gelinka dambe markay qorraxdu dhacdo yiraahda bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa waagu markuu bariyo haduu yiraahdana maalinka wax dhibaya ma jiro nin abaan la yiraahdo oo taabiciya ba xadiidka wuxuu ka warinayaa Uthman ibn Affan ardaygiisii markuu xadiidka u sheegay ayuu wuxuu arkay ardaygii oo fiirinaya sheekha waxa ku dhacay xanuunka la yiraahdo faalijka waxa weeye dhinac baa ingegay dhinac baa shalal kaga dhacay ardaygii markuu xadiidka u sheegay sheekhu wuxuu arkay sheekhiyo dhinac baa ingegan yahay oo shalal kaga dhacay ardaygii oo fiirinaya markuu arkay uu fahmay wuxuu ku yiri xadiiskan ku sheegay waa run maxaad iga fiirinaysaa markaas wuxuu ku yiri xanuunkani markuu igu dhacayay waxa la halmaansiiyay inaan idhaahdo bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa waan halmaamay inaan ku xirsi xidho si ilaahay qadarkiisu iigu fulo buu macna waxa weeye waan dhihi jiray laakiin qadar ilaahay baa socotay marka waa la halmaansiiyay sidaas xanuunku igu dhacay ee xadiidka nabiga ha ka shakinin buu ku yiri